afartii bari kooda waraba kooda hore way siiyeen markii dambana way iga jeclaaday Soomahan. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Way iga jeclaaday Soomahan. Asxaabteeda waa idin salaamay meel kasta aad joogtaan waa walaalkiin Muhidiin Macalin. halka iga daawanaysaan waa Nuurtiin channel. waxa idin leeyahay channelka hadaa ku subtahay subscribe noo saar like hada waa cusub fikirkaada hoos noogu wada waa maasantii ku soo dhawaada barnaamijkii oo faahfaahsan. waxay ahayd maalmo xun oo qadira dhow nafsad ahaan qofna ka kaban karin. maanta waxa inuu wada video sub sida aad ka soo aragteen thumbnailka iyo title-ka video-ga. marka waxaan rabnaa inaan ka hadalno maalmahan waxa laga wadwaday baraha bulshada Sumayo iyo Liicaato oo maalmahan bulshada Soomaaliyeed zaid ay uga hadlayeen in ay Sumayo maalmood oo isbitaal ay ku jirtay in ay Sumayo ilmihii ay ka soo noqdeen. waan arkay bulshada Soomaaliyeed in ay zaid uga hadlayso waan arkay balse ma aanan ka soo hadlin waayo labada qof oo labada shakhsi hadal lagama haynin wax rasmi ah iyaga shaaciyana ma arkin saaweed ayaan uga hadli waayay balse hadda waxay soo hadashay Sumayo ay bulshada Soomaaliyeed ay u soo bandhigtay waxyaabihii ay ku dhaceen iyo sida ay wax u jiraan ayay soo bandhigtay. waan is arki doonaa videogaas maadaama lamaanayaashan ay yihiin lamaanayaasha ummadda Soomaaliyeed ay wada jecel yihiin anaga naftirkeena waa jecelnahay waa lamaano isku qurux badan oo isku faraxsan. waxaan dhihi karaa jecelkooda wuxuu ahaa lamaano isqaba haddana 4 sano ay kala fogaayeen. lamaanayaashan quruxda badan dhaxdooda waxaa ka dhashay uur oo ay qaaday Sumayo balse ilaahay uma talgalin ilmahaas in uu si nabada u ku dhasho balse ilmihii waa uu dilmeen. waxaan rabaa markaan inaan isla fiirino Sumayo oo ka hadlaysa waxyaabihii shakhsi ahaanteeda ku dhacay iyo si ay u soo kabsatay si ay wax u jiraan ayaa bulshada Soomaaliyeed u soo bandhigtay. waxaan rabaa marka inaan isla fiirino video-ga kadib wixii fikirkayga ah ayaa ka dhiiban doonaa labadan lamaano oo badan tala ahaan waxaan u soo jeedin lahaa ayaan isla arkaynaa aan isla daawano video-ga. waxay ahayd maalmo xun oo qadira dhow nafsad ahaan qofna ka kaban karin balse iimaanka taam laga dhigay alxamdulillah la soo dhaafay. waxay ahayd maalmo xun oo qadira dhow nafsad ahaan qofna ka kaban karin balse iimaanka taam laga dhigay alxamdulillah la dhahaa. imtixaan waano inaa samirka inaa badis waayo haddii waqtigaas waxaas kugu dhacayaan horta waa oyneen wax markuu keli ku haysto ay ahayd mugtii laakiin ilaahay subxaana wa tacaala ugu talagalay sooma. okay video waa soo daawateen waana ila aragteen marka waxyaabahan noocan oo kale ah markii aad la kulanto ama aad aragto waxyaabaha qaar ama erayada qaar oo afkaada ka soo baxayo in aad kontroosho aad iyo aad ayay muhiim u tahay. marka lamaanayaashan quruxda badan waxaan u wadaa talo oo si walaaltinimo ah si saaxiibtinimo ah si bani aadanimo ah iyo si islaamnimoba ayaan u wadaa maadaama ay yihiin dhalinyaro oo aad iyo aad isku faraxsan
يعني waqti oo qurux badan daldalaalkan iyo iftiinkan iyo noloshan iyo waxaan uu la raaco heer uu gaaro in uu ka soo kaban waayo noloshan iyo farxadan iyo sida uu ka soo kaban waayo teeda kale waxaan halkan aan ka sheegay ayaa waxay tahay dhalinyaro kale oo islaamaana kale qurux badan oo aad da'yar ayaa daraad sidaan camal ilmahooda ay ka soo dilmeen waayo maalintii uurkaas soo baxayay iyo intuu ilmahaas ka soo weynaanayay iyo 9 bilood 8 bilood uu soo gaaray baraha bulshada ayaa saan loo wadwaday markii ilmihii 9 bilood ay gaareen way soo dilmeen marka qofka bani aadamka ah waxyaabaha qaar uu sameynayo haddana bulshada Soomaaliyeed inuu soo bandhigo soo waliba iyagoo ka hadlaya oo ay leeyihiin 9 bilood waa 9 bilood waa dad bulshada Soomaaliyeed dan ay soo bandhigaan iyadoo taasi ay jirto haddana qofka markuu social media yaabaha qaar oo ka soo bandhigayo heer waxay gaareen in hawaashi lagu soo kicin waayo labadooda il dartiis marka waxyaabaha qaar waxa fiican in aad u samirtid ayaa fiican marka Sumayo iyo Liato waxaan u soo jeedin lahaa ama waxaan dhihi lahaa dad badan oo caan ah oo arintan ay ka hadlayeen waan arkay dadka qaar been ay sheegayeen dadkan labadooda ma sheegay inay run ka hadlayeen inay been ay sheegayeen labadoodaba balse dad qaar ayaa waxay ka hadlayeen in ay Sumayo iyo Liato ay kala tageen oo ay isfureen dad qaar ma hubo ani balse dad qaar oo baraha bulshada ay isticmaalaan ayaan ka arkay dad ka hadlaya in ay labadooda ay isfureen ay sheegayeen balse labadooda wax jawaab kama hayno kulley waad ku warhaysaan baraha bulshada sida waa nolol khiyaali ah marka bulshada waxaan dhihi lahaa inay u soo jeediyaan oo labadooda ay soo wada fadhiistaan ay ka hadlaan yani wixii run ah ay jirto ayaan dhihi lahaa kale oo aniga aan idin siinayo ayaa waxay tahay in aad noloshiina ka dhigtaan private si ay hadda private ay u tahay sababtoo ah ummadda waxaa laga rabaa inay idin ka shakiyaan oo idin dhahaan maxaa labadan qof mis qabaan miya ay idin dhahaan sababtoo ah nolosha markay tahay private ayaa aad iyo aad u qurux badan waxaa idin leeyahay mar labaad in noloshiina private ka dhigta waxaa yeelay ilaahay uu awoodaa halkaas ilmo iyo inka badan in ilaahay idin siiyo waxaan idin leeyahay dadaal badan sameeya noloshiina ha ahaato nolol private ah noloshan oo social media waa aragteen xanteeda badan halkeeya u dambeeya ayaa wuxuu yahay noloshiina private ka dhigta marka ma rabo in aan videoga aan dheereeyo wixii tala oo xaggayga Soomaalinimo oo walaalahey u siinay taas ahayd wixii khalad ah markaad aan sameeyay waa idinka raali gelinayaa barnaamijkii aan fiirinaynay ama aan ku dul istaagayay walaalaheen ama lamaanaheena aan jecelnahay Liato iyo Sumayo aadan intaas ayuu ku eg yahay asxaabteeda waxay idin leeyahay channelka hadaa ku soo tahay walaal subscribe saar si ay ku soo gaaraan fiidiyoyaashayga like taadana waa codsi fikirkaada hoos igula wadaag waa mahadsantihiin waxaa idin leeyahay maalinta ha idin wacnaato idin tahay waa mahadsantihiin